Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararka caalamka iyo Soomaalida. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo mas'uuliyiin culus oo ka badbaaday isku day dil. Beesha caalamka oo go'aan culus ka qaadatay arrimaha la xiriira doorashooyinka. walwal laga muujinayo qorshe cusub oo xasiloonida Soomaaliya khatar ku ah oo ay bilaabeen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. Haddaba qorshahaasi muxuu yahay? Xog gaar ah ayaad kaga bogan doontaan warkeena. Hubkii ugu badnaa oo loo waday Addis Ababa iyo dadkii watay oo sirdoonka Itoobiya ay gacanta ku dhigeen. iyo ra'iisul wasaare Roble oo dacwad culus ka gudbiyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. waa habeenimo axad ay sii bixayso isniinna ay soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay 28 bisha Febraayo sanadka 2021. warkii oo dhan qaraxyo isxigay ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan mas'uuliyiin xilal culculus haya in ay ka badbaadeen qaraxyadaasi oo dad shacabna waxyeelo ay ka soo gaartay. xogtii ugu dambeysay aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan barqanimadii maanta oo axad ahayd in qarax nooca miinada dhulka lagu aasaa lala eegtay gaari uu watay ku-xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyadoo xogaha ay sheegayaan in qaraxan uu ahaa ujeedkiisa in lagu qaarijiyo mas'uulkaasi. waxaana la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay qaar ka mid a ilaaladiisa oo halkaas ku geeriyooday iyo dad wadada marayay. taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka ayaa ka badbaaday qaraxaas, iyadoo Al-Shabaab ay sheegteen in ay si darqi ah uu kaga badbaaday mas'uulkan oo ay sheegeen inay qorsheynayeen in ay ku qaarijiyaan halkaasi. goobta qaraxa uu ka dhacay waa wadada Cabdiqaasim oo isla meeshan horey loogu qarxiyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, iyadoona xaaladda magaalada Muqdisho maanta ay ahayd mid aad u kacsan. daqiiqado kadib qarax kale oo nooca miinada dhulka lagu aasaa ayaa ka dhacay degmada Yaaqshiid, gaar ahaan xaafadda gaarka ah ee sida weyn loogu dalxiis tago ee Daarusalaam. sida ay sheegeen wararka aan ka helayno gudaha deegaanka Daarusalaam, qaraxa nooca miinada ah ee dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay mas'uuliyiin ka tirsan degmada Yaaqshiid. qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa jugtiisa laga maqlay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay guud ahaanba degmooyinka caasimadda. wararka ayaa sheegaya in qarax lala eegtay gudoomiyaha maamulka degmada Yaaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif iyo saraakiil booliis ah oo halkaasi ku sugnayd. ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta khasaaraha ka dhashay qaraxan, laakiin dadka reer Muqdisho ayaa walaac xooggan ka muujinaya ammaanka oo u muuqda mid faraha kasii baxaya. beesha caalamka oo weli ku jahwareersan xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa mar kale go'aan ka qaatay shirarka ay diideen Jubbaland iyo Puntland ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday caasimadda Muqdisho. beesha caalamka ayaa xoojisay dadaalada ay isugu soo dhaweynayso dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee isdiidan siyaasad ahaan, waxaana la sugayaa inay soo saarto go'aan horey loogu sii socon karo, isla markaana ay kusoo dhowaan karaan Jubbaland iyo Puntland oo gebi ahaanba diidan nidaamka madaxweyne Farmaajo wax uu ku wado. labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa laalay shirkii 18 Febraayo 18 ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo 19 Febraayona magaalada Muqdisho rabshado ay ka dhaceen isla markaana la weeraray xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. sidoo kale shirka ka dhici lahaa Muqdisho waxaa saameyn ku yeeshay dhacdooyinkaas, iyadoo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in ciidanka xoogga dalka loo adeegsado caburinta siyaasiyiinta iyo shacabka. waxaana ay sheegeen in Villa Soomaaliya aysan uga qayb gali karin hab yaraatee wax shir ah oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. waxay soo jeediyeen meel ka baxsan Villa Soomaaliya oo ammaankeeda ay damaanad qaadayaan beesha caalamka in shirka uu ka dhaco. sidaa daraadeedna 8 qodob ayaa ka dambeysay oo Jubbaland iyo Puntlandba la fahansan yahay inay isku og yihiin oo ay soo saareen, taasi oo ay qayb ka tahay in taliyayaasha ciidamada gebi ahaanba xilka laga xayoobiyo.
iyadoo taasi ay jirto ayay beesha caalamka mar kale waxay isku dayayaan inay isku soo dhaweeyaan hoggaanka Soomaalida walow xaaladda ay u muuqato mid kafaar ah oo shacabka aan loo turayn isla markaana dhinacba dhinaca kale uu isku dayayo sidii culayska uu u saari lahaa dhammaan ujeedooyinka u gaarka ah in loo fuliyo. Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa iminka fartaagan ah oo maamulada kale ee dalka iyo gobolka Banaadir waxay ku feeshan yihiin dowladda waqtigeeda uu dhamaaday ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale xogo hoose oo soo baxaya ayaa muujinaya daawadayaal in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kulan la qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka dacwad toos ah uu ka gudbiyay Saciid Cabdullaahi Dani. Siyaaya xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa habka fogaan aragga kulan kula yeeshay wakiilada beesha caalamka sidoo kalena baahiyay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. qoraalka waxaa lagu sheegay in kulankan looga hadlay sidii horey loogu sii wadi lahaa wadaxaajoodyada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyadoo la hirgelinayo heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. sidoo kalena aysan ka marnayn hirgelinta isfahamkii dhex maray guddiyadii farsamo ee dhawaan ku shiray magaalada Baydhabo kuwaas oo 2 maalmood ku shiray halkaasi isla markaana xal soo saaray. sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay siyaaya xilka ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ku bogaadiyeen kaalintii uu ku lahaa isfahamkii uu la gaaray midowga musharaxiinta kadib shir ay yeesheen 25 Febraayo. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si gaar ahaaneed walaac uga muujinaya go'aanka ay qaadanayaan Jubbaland iyo Puntland oo uu ku tilmaamay mid aan Soomaalinimada ka turjumayn iyo duruufaha shacabka haysta sidii looga bixin lahaa. inkastoo Jubbaland iyo Puntland oo isku dhinac ahna ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo wax kasta oo uu sameynayo uu ku dhaqaaqayo sidii uu u soo laaban lahaa taasna aysan suuragal noqon karin haddii taliyaasha ciidamada xilka laga qaadana ay wax walba caadi ku soo noqon karaan oo jawi siyaasadeed oo lagu wada hadli karo dalka uu gali karo. xogo kale oo halis ah oo soo baxaya ayaa muujinaya in gabi ahaanba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihiisa Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay wadaan qorshe halis ku ah guud ahaanba xasiloonida dalka xaaladan uga sii dari kara. madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa bilaabay in ciidamo gaar ah oo ku waxbasaasa ay ku soo daadiyaan magaalada Muqdisho kuwaas oo maleegaya shirqoolo ka dhan ah dadka xukunka Farmaajo ka soo horjeeda. wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa ay adeegsadaan awood dhaqaale iyo mid ciidan si ay u sii joogaan xukunka ugu sareeya dalka. ciidamo dharcad ah oo aad u tiro badan oo ku xareysan xarunta Nisa ayaa la sheegay in maalmaha soo socda lagu daadin doono magaalada Muqdisho gaar ahaan waxa ay si xoogan uga howlgali doonaan deegaanada ay ku badan yihiin mucaaradka. xog gaar ah oo aan helnay ayaa tibaaxaysa in ciidanka dharcadka ah ay fulin doonaan howlgallo kala duwan oo ay ugu weyn tahay inay si bareera u toogtaan dadka aragtida ka duwan dowladda federaalka Soomaaliya qaba gaar ahaan kuwooda xag jirka ah ee looga cabsanayo siyaasadda dalka in saameyn ay ku yeeshaan. sidoo kale taliyaha Nisa ayaa wada qorshe ciidanka Eritrea laga keenayo loogu wareejinayo hay'adda Nisa si ay qayb uga qaataan howlaha nabad sugidda ay hayso. doorashada Soomaaliya oo haatan maraysa meel xasaasi ah isla markaana aan go'aan rasmi ah laga qaadan xilliga ay dhacayso ayaa go'aankan waxaa lagu tilmaamay inuu noqon karo mid dharbaaxo ku noqon karo isku soo dhawaanshaha ay sameeyeen mucaaradka iyo muxaafidka. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu u muuqdaa in uu qaadayo dhaba kasta oo uu arko in xilligan dowladda federaalka Soomaaliya awoodeeda ay ku sii muujin karto. waxaana sidoo kale la sheegay in Fahad Yaasiin iminka uu ka shaqeynayo inta uusan xilka ka tagin in uu badbaadiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sumcadiisa isagoo ku badbaadinaya awood ciidan oo aan ka soo laabasho lahayn. wararka ka imaanaya caasimadda Addis Ababa ee Ethiopia waxa ay sheegaysaa in halkaasi lagu qabtay hub aad u tiro badan iyo ragii watay. ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada Addis Ababa ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan, rasaas iyo ragii watay. warbixin ka soo baxday booliiska ayaa lagu sheegay in hubkan Addis Ababa lagu soo geliyay gaari nooca loo yaqaano Isuzu kaasi oo ka yimid deegaanka Amxaarada. sidoo kale saraakiisha booliiska ayaa shaaciyay in hubkan loo ekeysiyay agab caadi ah oo saarnaa gaariga balse ay dabagal ku sameeyeen sirdoonka dalkaasi. qoraal ka soo baxay booliiska Ethiopia ayaa sidoo kale lagu sheegay in hubka la qabtay uu kala yahay 2 PKM 2 Inesper
38 bistooladaha waaweyn, 25 bistooladaha yaryar, 5,992 rasaasta qoriga AK-ah, 898 rasaasta bistooladaha ah, 5 rasaasta qoriga Incendiary-ka ah iyo agabka qoryaha. Waxaana hubkaas lagu qabtay xaafadda Gulaale, gaar ahaan degmada 8aad, xaafadda Hoosaadka 7aad ayaa la yiri. Warbixinta ayaa sidoo kale intaasi kusii daraysa in la qabtay 2 nin oo la socday gaariga, isla markaana ah kuwa hubka qarsoodiga ah soo geliyay caasimadda Addis Ababa. Ethiopia ayaa marar badan gacanta ku dhigtay hub si sharci darro ah loogu waday qaybo ka mid ah dalkeeda, laakiin arrintan ayaa la fahamsan yahay mid siyaasadeed inay tahay oo argagixiso aysan shaqo ku lahayn. Warkii caalamka waa naga intaa. waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena. Muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.